rasuulkeena naxariis iyo nabadgelyo korkeena ha ahaatee wuxuuna amray markaan seexanayno inaan u jeesano dhinaca midig. daba su-aasha isweydiinta la ayaa maxay faa'iido leedahay in loo socdo dhinaca midig. daraasad ay sameeyeen khuburo caafimaadka ayaa lagu ogaaday faa'iidada ay leedahay in loo socdo dhinaca midig. waxaana ka mid ah hurdada loo seexdo dhinaca midig waxay ka fiican tahay marka la eego dhinaca bidix inaad u seexato. qofku marka uu seexdo dhinaca midig hurdada uu ka dhargayaa xagga marka uu seexdo dhinaca bidix ama uu seexdo dhabar inaanu ka dhargan hurdada. wadnuhu uu foorarsamaa marka loo seexdo dhinaca midig xagga marka loo seexdo dhinaca midig wadnuhu ahaado sidiisa. daawada ma la soo koobi karo faa'iidada ay leedahay in loo seexdo dhinaca midig, balse intaas ayaan ku soo koobaynaa barnaamijkeena. inta ku kulmayna barnaamij lamid ah waxaa naga tegnaa sidaas iyo salaamullaahi calaykum. si aad u hesho muuqaalo badan hadda subscribe dheh oo ka mid noqo kumanaanka qof ee ku xidhan channelkayga Xamse Jooqane. nagu soo bir caalamkan cusub adoo ka faa'iidi doona xogooyin iyo dhacdooyin la yaab leh.